Barlaamka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta xasaanada kala laabtay tiro gaaraysa 8 xildhibaan oo lagu soo eedeeyay inay falal ka dhan ah isla markaana ay jibiyeen xiroosaadka anshaxa golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland 35 mudane ayaa gacanta u taagay in xilka laga xayuubiyo kalsoonida lagala noqdo waxaana diiday 3 mudane oo hal xildhibaan ayaana ka aamusay xildhibaanadaasi oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan Cabdijamaal Cismaan xildhibaan Cabdiqani Surete xildhibaan Muuse Jabsade xildhibaan Budeeye xildhibaan Maxamed Barre xildhibaan Suleymaan Faarax xildhibaan Cabdiraxmaan Doore ayaa dhamaantood si rasmi ah xilka xasaanada xildhibaannimo laga xayuubiyay ka hor inta aan laga cayrin shaqada xubinimo waxa ay fashilmay dadaalo ay wadeen gudida ka tirsan isla gudaha baarlamaanka kuwaas oo xal u waayay ciidamaha loo haysta mudanayaasha oo ay ka mid yihiin isku horkeen golaha dhexdiisa abaabul iyo fadwooyin laga soo mareegayo gacan ka baxsan siyaasadda maamulka Puntland. Xuseen Xasan Qaaday, Tirsan TV, magaalada Muqdisho.